وهجاد داود يال وحان نقلصو هذلنا حرونتا قراها الشعب كا مجالات مقدسة وجور دو وكفر مدونه كالفريق التضباط برلمان كوي تبنات الجمهورية الفدرالية الصومالية لبدي ساقل ومانت سر رسمي أفر مدونه كالفريق ضد التضباط وعهد لغسو لابتين حلبان لبدا قلي كسو لابتين فصح لبدل أي سوقاتين كدبنا دب أفر مية كالفريق التضباط ما دام حلبان لبدا قلي برلمان كجمهورية الفدرالية الصومالية هوريالان howlo fara badan oo la xiriira dejinta shuruuc muhiim u ah horumarka dawladnimada dalkeena sida dastuurka qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu qorayo waxa si rasmi ah u furi doona kalfariga toddobaad baarlamaanka labadiisa aqal madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbadiisa dastuuriga ka jeedin doona kulanka maanta oo la xiriira furitaanka kalfariga toddobaad ee baarlamaanka labadiisa aqal ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya kalfarigii la soo dhaafay lixaad hadan dib u eegno xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay ka soo shaqeeyeen shuruuc muhiim ah taasoo kaabis u ah horumarka dawladnimo nidaamka dawladnimada dalkeena waxaan hadda kalfarigan toddobaad xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka horyaala inay ka howlgalaan oo ay ka shaqeeyaan shuruuc kale iyadana muhiim u ah nidaamka dawladnimada dalkeena laakiin sida guddoonka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu sheegayba kalfarigan toddobaad xildhibaanada labada aqal ka soo shuruuc muhiim ah hortaalo haddana waxay xoog saari doonaan ka shaqeynta arrimaha la xiriira dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka ku-meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka dhowr cutub oo kamid ah hore uga soo shaqeeyeen laakiin kalfarigan toddobaad ay sheegeen guddoonku in la dhamaystiri doono dib u eegista iyo sidoo kale dhamaystirka dastuurka ku-meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya kulanka maanta waxaa goobjooga xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaa shir gudoomin doona gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe waxaa sidoo kale joogi doona ka soo qayb gali doona gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ku-xigeenada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaanada labada aqalba waxaana sida hordhac warbixintan aad ku daawateen ama aan idinkugu sheegnayba furi doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbadiisa dastuuriga ka jeedin doona kulanka iyo khudbada madaxweynaha Jamhuuriyadda hadal jeedinta gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha golaha aqalka sareba si toos ah ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waxaad kala socon doontaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed radio Muqdisho iyo dhammaan mareegaha kala duwan ee warbaahinta qaranku ay leedahay ambogeena warbaahinta bulshada ku wada xiriirtay social media iyo telefishinka qaranka la fahantiisaba guud ahaan warbixinteena maanta intaas aynu ku eegaynay waa hordhac ku saabsan sida tooska ah warbixinta iyo guud ahaan kulankan maanta ee furitaanka kalfariga toddobaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo golaha aqalka sare si toos ah ayaad noo daawan doontaan haddii Ilaahay yiraahdo waa Ibraahim Guule Isxaaq oo idin kala soo hadlaya xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho